mudane madaxweyne aqalkani wuxuu jiraa waa 3 sano iyo waxaan filayaa iyo 7 bilood muddadii uu jiray waad garan kartaa waa aqal cusub waa nidaam inagu cusub guud ahaan hase yeeshee iyadoo xaaladaha dalka jiraana ay yihiin kuwa caqabado badan leh waxa uu ku dadaalay inuu kaalin fiican ka qaato oo wax qabadkiisu bixiyo aqalkani wuxuu matalaa oo dastuurku si toos ah u sheegaya dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka wuuna ku dadaalay inuu ku shaqeeyo arintaa inkasta oo caqabado fara badani ay jireen oo ayna si sahal ah yani waa nidaam inagu cusub federaal baan qaadanay oo inagu cusub dawlad kasta oo adduunka oo federaalihi waa qasab inay laba aqal yeelato oo waliba labada aqal uu mid toos mas'uul uga yahay dawladaha xubinta ka ah dawladda dhexe aqalkani kolka intii dadaalkiisa arintaa uu ku dhaqaaqay waxaan filayaa 22 sharci ayaa aqalkan soo gaadhay 22kiiba wuu ansixiyay maanta ma jiro sharci aqalkan yaala oo aan la ansixin ma jiro sida badan in sidaan u shaqeynayna baarlamaankan waxa marka hore xukuumadda dabcan samaysa shuruucda 9% kama maqna in aqal kastaaba uu sharci soo sameeyo dalkan uu arko inay waxtar u tahay marka xukuumaddu inta badan annaga shuruucda naguma soo bilowdo inkastoo wax diidaya ayna jirin laakiin sharci kasta wuxuu ka soo bilaabmaa golaha shacabka marka ay ansixiyaan ayay noo soo gudbiyaan annaguna markaasaan ka howlgalnaa laakiin ilaa maanta inta sharciga naga soo gaartay 22 sharci weeye 22kiiba waa ansixinay wuu naga gudbay waliba sharciga waxaanu ku celinaa annagu kolkaanu dhammayno golaha shacabka oo micnaheedu yahay iyaga ayaa u gudbiya madaxweynaha si uu madaxweynuhu u saxeexo looguna gudbiyo faafinta rasmiga ah sharci si uu u noqdo ilaa kolka hore sharci qabya weeye intuu ku jiro baarlamaanka ama aqal sare ha ahaado ama golo shacbi ha ahaadee waa sharci qabya ah marka uu madaxweynuhu saxeexo ee uu faafinta rasmiga ah galo ayuu yahay sharci uu noqonaya marka intaa waxaan kaga baxayaa yani marka hore yani aqalkani muddadii uu jiray yani howluhu qabtay waxaa ka mid ah khilaaf jiray dawladda xukuumadda dhexe iyo dawlad goboleedyada aqalkani wuu isku dayay inuu khilaafka xalliyo wuu isku dayay dawlad goboleedyada waxaan u dirnay wufuud dawlad goboleed kasta aan ku weydiinayno su'aal odhanaysa markii ay samaysteen madashii aan leenahay oo yidhaahdeen wada shaqayntii xukuumadda dhexe waa hakinay waa joojinay maxaa idinku kallifay inaad sidaas samaysaan waxaan u dirnay wufuud dawlad goboleed kasta wafdi baan u dirnay way keeneen laakiin waxaan ka xumahay arrintaasi ma dhaqan gelin ma fulin ma ay fulin waa arrin
يعني taagan oo halkaa waxaa ka soo baxaya laba meelood labadaba aqalkan يعني xukuumadda dhexe amaan idhaahdo xukuumadda dhexe garawsho sidaa samaysiin dowlad goboleedkuna ma ay siinin oo ma ay baawar garayn waxaanan maanta aad adigu nala joogto aan soo jeedinayaa arrintaasi aqalkan hadda waa bilow kan hadda aan joognaa waqtigiisii waa gabagaba wuu dhammaaday laakiin mustaqbalka haddii aynu mar ahaanayno federaal waa lagama maarmaan aqalkani inuu doorkiisa qaato ood aqoonsataan ood imbaawar garaysaan lagama maarmaan weeye waxaan isleeyahay waxoogaa dhibaatooyin yaryari way jiraan oo ah annaga iyo golaha shacabka khilaaf yar baa yaalla khilaafkaasi waa maxay salkiisu khilaafkaas salkiisu waxa weeye يعني sharci baan rabnaa inuu socdo laakiin dhinac kale waxaad moodaa sharciga inaan qadarintaasi ay yar tahay oo hadda shuruuc bay ansixiyeen oo ay gacanta ku hayaan noomay soo gudbin waxa u sababa oo la sheegaya qodobka 47 ee dastuurkan oo odhanaya sharciga doorashada iyo axsaabta iyo diiwaangelintooda waxaa xeer ka soo saaraya golaha shacabka xaq bay u leeyihiin ma diidanin xaq bay u leeyihiin inay sharci xeer inay soo sameeyaan xeer biil inay keenaan waa labada aqalba xaq bay u yeelanayaan laakiin maxaan meesha ku jirin oo ina xaq u lahayn waxa weeye de ansixintu waxay u baahan tahay baarlamaanku sharci kasta oo la sameeyo oo qabya baarlamaanka ansixiya baarlamaanka Soomaaliduna waa laba aqal marka arinta ay istuseen guddoonka aqalkaasi waxaad moodaa samayntii ay soo diyaarinayeen sharciga uu siinayaa dastuurku laakiin meesha gafku ku jira waxa weeye ta sharciyeyntiisii kaligood ma laha labada aqal baale baarlamaanka leh baarlamaankuna wuxuu ka kooban yahay laba aqal ayuu ka kooban yahay arrintaasi waxaan rabnaa in garawsho lala yimaado oo ay noqoto haddii xeer oo labada aqal mid soo sameeyo xeerkaasi qabyo weeye ansixintiisu waxay u taallaa labada aqal mid gaara uga taalo taana intaasaan kaga baxaya ma yani waxa weeye madaxweynuhu oo ballan buu leeyahay waqtiga inaan baaqaamino ayuu u baahan yahay loo baahan yahay waxa weeye hadda waa bilow waxa kaliya ee aqalkani uu rabaa waxa weeye si wada jir ah dadka Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta maanta halka hore joogta guud ahaantood hadda ka horna waynu soo jeedinay aqalkani wuu soo jeediyey oo bishii Juun 9keedii waxaan shir ku galnay Zoom waxaan yiraahdeen oo waxaan soo jeedinay tala ah in shir la isugu wada yimaado kolka shir heshiis lagu wada yahay in doorashadu yani wax heshiis lagu wada yahay doorashada ku soo baxdo wali aqalkani wuu aaminsan yahay sidaas uu aaminsan yahay waxaan idinka codsanaynaa inaydun si wada jira heshiis lagu wada yahay la isugu yimaado ee aan cidina cid ku riixin waxaan filayaa adiga iyo Axmed
waxaad ka maqnaateen shirkii saddexaad ee dhuusamareeb lagu qabtay waxaad mooday anigu hadda dhuusamareeb baan tegey waxoogaa qoladaasina inay sheeganayaan oy leeyihiin de waxa weeye waana lagaga baxay shirka dambana laakiin madaxweynaha dowlad goboleedkaas iyo anigu si fiican baan arrintaa uga wada hadalnay wuuna iga garowsaday waxaan idhi haddii ay dhacday axmed iyo deni inay iman waayeen iyagoo dee wax sheeganaya kolley sabab ay uga maqnaadeen way jiraysaa laakiin adigu ha noqon ha odhan hadday kol iman waayeen anna yacni shir ma tegayo ha odhan sababta waxa weeye 30 sano waxaynu ku jirnaa uun sidaas aakhirkiina uu iga oggolaaday waa yahay buu yidhi waxaan haddana anigu aan leeyahay shir wada jira ayaynu u baahannahay oo guud ahaan siyaasiyiinta soomaalidu inay garowsho la yimaadaan dalkeenna waxaan anigu hadda filayaa weli chapter 7 wuu taagan yahay chapter 7 wuu taagan yahay ciddii doontaaba siday doontaa ha u aragtay waxa weeye halkaana xalane waxaa jooga innaga gacanteenna kuma jiro dowladaa jooga cid walba ay dan ka leedahay soomaaliya hadda waxaan ka baqayaa haddaynu noqon weyno inaynu heshiino oo dalkeenna aynu u bixin weyno itijaah hadda anigu waxaan isleeyahay muddo dheer baynu taagannahay 30 sano hadda wixii ka dambeeyay inay dhici karta in la yidhaahdo trustship baa la gelinaya dalkan oo isma maamuli karaan marka waxaan leeyahay waa inaynu dalkeenna u fikirna mudana madaxweyne waxa weeye maanta arrinta idin hortaallaa waxa weeye inaydun qolada kalena yacni raalligelin aad bixisaan oo aad soo dhaweysaan oo aynu noqonno si isku duuban inaynu u helno xal inaynu helno erayna aqalkani ma garowsan karo in la yidhaahdo haddee ma jiro oo kolkaa waxaa wax sharciynaya golaha shacabka oo keliya taasi marna ma soconayso suurtagalna maaha sharciga aynu dhowrno kulligeen aynu noqono dad isku duubma oo wada socda waxaan filayaa arrimo badan oo dhici karta kolka shirka la isugu yimaado hadda waxaan filayaa shirka inaan ku leenahay qayb aan ku leenahay dowladda dhexe ayaan ka tirsannahay baarlamaanku qayb buu ku leeyahay